بقى صدق ما لقى عيسى تدري لك لا تجي والله وش اللي لقى meesha dagaal baa ka dhacay mareedhigla la kala furtay dhanka kale Puntland gurmad badan bay soo dirtay ciidamadii BNPF baa soo baxay oo iyaguna caawa ku soo wajahan waan baa laga dhaxwadaa magaalada gudaheedii labadaba ku kala sugan yihiin maakhirna waa ku sugan tahay Puntland waa ku sugan tahay warka madaxtooyada Puntland ka helo waxay tiri wixii dhiig ku daadanay ku daatay Cabdiraxmaan Dheeraan gacanta lagu soo dhigaa waayahay soo dhawaada meel kasta oo joogtaan wadayaal halkani waa Cabbaas Madani saddex qodob ayaan barnaamijka caawa ku dul istaagi doonaa arinta koowaad dagaalka qaraad ee ka dhacay maanta baran ee ku dhaxmaray ciidamada Puntland iyo Maakhir State khasaaraha ka dhashay dagaalkan qaabka ku bilowday gurmadka hadda socda ya xaalku hadda meesha u marayo warkaasi way ka dabageen doonaa arinta labaad madaxweynaha dawladda Isii Khaatumo oo gabi ahaanba ganaf ku dhuftay caasimad uga timi fiilada Soomaaliya oo ahayd inuu ka qayb galo shirka madasha wada tashiga qaranka ee ka socda Muqdisho qodobka ugu dambeeya waxa weey wasaaradda ciyaaraha Isii Khaatumo fariintan ay gaarsiiyay sheerta iyo laagta iyo leedii tilmaamayo wafti ballaaran oo hogaaminayo gudoomiyaha guddiga siyaasadda iyo hadii la kuroyahay difaaca Maakhir State Cabdiraxmaan Dhowaan waanigii sheegay safar buu ku kala bixinay deegaanada beesha Warsangeli reer Maakhir dadka waa wareysanayay aragtiyadooda waxay qabaan qaab wanaagsan baa loo soo dhaweeyay maanta baran butay baran markii uu saaka galay waxa xalay iyo shalay galaba socotay saansaa colaadeed oo ah ciidamo Puntland ka amar qaata Puntland ka mushahar qaata oo isla Warsangeliya in ninka loo adeegsado in halka isku horimaad ka dhaco in meeshaas khasaare ka dhasho in la isku baabao in Warsangeli dhaxiisa laga dhax kulmaysto arintaasna waxa qaybta ugu weyn ka qaadanaya waa xukuumadda dani weey iyada bush gareynaysa awshaasna ka shaqeysay maanta xagga la isku helay waxa la isku helay controlka ku yaala jaamacadda baran haddana loo yaqaano jaamacadda ummadda halkaas labadii ciidan ee Maakhir iyo kuwii Puntland waxa weey ka mushahar qaadanayay ay isku heleen meesha marka dagaal ka dhacay ee jaamacadda iyo magaalada xoogaa wax yar bay isu jiraan meesha dagaal baa ka dhacay mareedhigla la kala furtay hogaamiyihii Cabdiraxmaan Dhoore magaaladii buu soo galay imikana magaaladii ku sugan yahay waxa jira marka halka marka hawsha marayso shacabkii magaalada baran way soo baxeen dibadbaxyo sameeyeen calanka Maakhir bay qaateen waxay leeyeen aragtideeda oo madax banaanahay wax meel kale looga soo maanguuriyay ma yeelanadeen xagala geel wax gunti la galiyay ka weyn annagu qadiyadeedu iyo aragti ah inaan Maakhir raay waa aragti ah inaan dib u tashano hada moogta waa qaabka wax weey shacabkaas u hadleen khasaaraha daba xaga Puntland maleeshiyadii Puntland ka socotay saddex nin baa ka dhaawacmay xaga Maakhir ciidamadii Maakhir nalooma sheegin wax dhaawacmay iyo wax dhintay nalooma sheegin halkaasi laakiin shacabigii ayaa waxa soo gaaray khasaaro laba qof midna waa dhintay midna waa dhaawacmay ninka dhintay waa nin dhalinyaro oo la sheegay inuu yahay beesha Gahayle Swakharon u dhashay laakiin reer baran ahaa oo baran abtiyaashi ay dabcan ka soo jeedeen waxa la yiraahdaa magaciisa Abdifataax Cabdullaahi isdaldal baa la yiraahdaa ilaahay u naxariisto wiilkaas hartiga ee geeriyooday waxa weeye ilaahay baan jannada firdaws uga baryaynaa qof kale isna dhaawaca dhibaato iyo shido la abuuro oo lacag lagu bixiyo laaluush lagu bixiyo asay dhashaa intaas horta waa intaas imika xaaladdu xagee maraysaa xaaladdu waa danger sameysto waa danger sababta waxa weeye gurmad badan baa soo baxay dhahar meesha la leeyahay iyo xingolool ilaa yube ilaa damala xaraya ilaa shimiraale dhulkaas oo gurmad ciidamada Maakhir ka soo baxay hogaamiyihii Cabdiraxmaan Dhoorana magaaladii ku jiraa ciidamo badan baa waardiyeynaya dhanka kale Puntland gurmad badan bay soo dirtay ciidamadii BNPF baa soo baxay oo iyaguna caawa ku soo wajahan waan baa laga dhaxwadaa magaalada gudaheedii labadaba ku kala sugan yihiin Maakhirna waa ku sugan tahay Puntland waa ku sugan tahay dadka odayaasha ee samakataliska waxay wadaan dhaqdhaqaaq bay wadaan inay meesha nabad ku dabaalaan oo at least la yiraahdo qolo walba baran dhankeeda ka joogto oo aan xabad iyo dil dambe aan ka dhicin
laakiin taasi u maleema inay suurtagelayso qoliyaha Puntland ayaa waxay soo jareen waarankaas oo waaran qabasho oo lagu soo qabanayo hogaamiyaha guddiga siyaasadda iyo difaaca Maakhir State Cabdiraxmaan Dhoore waaranka waxaa jiray sida loo sheegay xeeraryaha guud ee Puntland Axmed Taaraan ayaa waaranka soo jaray waa dani bay isku reerihiin waa in adeerkii dani ujeedka waa in wixii dhiig ku daadanaya sida Puntland Puntland ka helay warkan madaxtooyada Puntland ka helay waxay tiri wixii dhiig ku daadanaya ku daatee Cabdiraxmaan Dhoore gacanta lagu soo dhigaa intaas horta waa intaas waa xog weey intaas waa xog weey xogta markaan ka imaado Soomaalidu waxay tiraahdaa lay qorqabasho biyo kuma cabto anigu waxaan qabaa faragelinta dawada waa Puntland way sababtu waxa weey dadkani waa tashadeen at least waxa weey waa laga baaqsan karo imaata dhacay dadka in la isu daayo oo iyagu tashadaan oo aan waxa weey hadii la kuuriyay wax la yiraahdo khasab baan aragtida waxa weey kugu socodsinaya warmarka warsageli haday dheen waa tashanana oo waa isu imaanana oo anaga warsageli siyaasadda ka tashanana oo masiirka ka tashanana ma ciidan baan u soo diray ku caloosho shaqaystayaala kadib waxa weey waan xoog baan rabana war cidna xoog lagu ma qabsan karo wareera war daarto way siiqana qaar ba waxay dhahaan ka hadla arinta Maakhir Puntland bad mucaarad ku tahay Puntland bad nacabta war Cabaas Madani cidna ma nacba cidna ma jecla anu cidna ma nacbi cidna ma jecli hadii harti laga hadla kuwan aanu hadlayo soo harti ma kuwan laga gardaran yahay warsageli miyaan harti ahay war waxay ku wanaagsan tahay meesha nabad lagu dabaalo Maakhir ciidamadeedina gurmadka meel walba iskaga soo baxaan Puntland gurmadkeedina meel walba iskaga soo baxaan meeshaasi waa la isku leeyahay dhimasho ma imaan doonto hadii dhimasho tabaadana cid kale waxa weey dal ku u dawladeyn kartaa ma ka faa'iido kartaa ma jirto taas waa taa anigu waxaan ku dabaalayaa labada maamul ee Maakhir iyo Puntland in la wada hadlasiyo oo waxa codsanaya dadka ehelka ee u dhow inay kala gaaraan ummadda la kala gaaro oo nabad lagu dabaalo nabad baa naasna looga leh colaadi wiil kuma dhasho wiil baa ku dhinta umana oranay isdila kuna farci maayo waa garabkayga midigi garabkayga bidix weey laakiin ka khaldan runta u sheegaya Puntland waa khaldan tahay aniga cod dheer kule Puntland waa khaldan tahay sababta idin sheegaya dadkan haday dhahaan concern baa qabnaa cabashaan u qabnaa Puntland intii inteerki la dhisay deegaanka waxba kama qaban Puntland cid gaar ah xaq bay u leeyihiin dareenkooda inay muujiyaan oo ka hadlaan laakiin maaha waxa weey qorta ku qabanayaayo siyaasadeedan hadii la ku khasbaya oo waxaas meel ay ka hirgashay ma jirto bal deegaan warsageli fiiri Puntland way sheegataa mashaariic bay ku qaadataa ma ka fulaysaa may bal barboosasay qardhay garaway hadii la ku degmooyinka gobolka Mudug ee qaybta Puntland maamusho bal say weeyeen fiiri bal waxa laami ka socda fiiri wadada ay daahir baa dhameystir laada warun baan idin sheegaya nimankaas haday dhahaan waa tashanayna dib baan isku laabana xaq bay u leeyihiin cid ka hor istaagi karta ma jirto waxaan leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ba ka xishooday bilaadankiisa iyo adoomihiisa inuu tuu qorta qabto ilaa khasab igu caab midko bilaadan la idinka yeelaya war ciidanka BNPF ta ee baxay ee halka raba in hoos ka sii sameeyaan xogtooda waa la hayaa anyway nabad baa naasna looga leh qolo walba deegaankeeda loo amaan celiyo haloo daayo umadaas ha tashato ha isku tagto deegaanka ama ha loo siiyo nabad baan ugu baaqnaa labada maamul Maakhir iyo Puntland nabad baan ugu baaqnay insha Allah ta'ala arinta labaad madaxweyne Firdhiye ayaa ganafa ku dhuftay shirkii Muqdisho ka socday nimankii markay arkeen Axmed Madow nin daarooda Kismaayo ku laabtay maskax bay sameeyay wax dhaawaynan Firdhiye keenaa isboo daarooda adoo Firdhiye shalay markuu shirku furmayay ay ka hortaagnaayeen xogtan idisiinay waxa weeye waxaa loo soo diray madaxweyne Firdhiye invitation casumaad inuu shirka ku yimaado shirkan uu ka qayb galo la yiraahdo daaro Firdhiye ku haynaa alxamdulillah ilaahay madaxweynaheenu waa sooransiye taladaas wanaagsan iyo taladii lagu taliyay waa qaatay waa ka cudur daartay shirkaasi waqtigan diyaar uma yahay kama qayb galayo sababtoo arintaasi u diidan away meel daaroodkii kii ugu dambeeyay ka dareeray sabab marka Firdhiye hadii la ku rashalay la hagaragaday oo shalay la maamay si khaatib laga daayay uga qayb galo shirkaas ma jirin
madaxweynuhu waa diiday ganaf ku dhuftay taladii dadka reer SC Khaatumo aqoonyahankii wax garadkii ay u jeediyeen ayuu qaatay laba shuruudood buu ku xidhay laba shuruudood shirka inuu ka qayb gali karo laba shuruudood buu ku xidhay shuruudda koowaad waa in la keena Puntland iyo Jubbaland oo ah niman daarooda oo deegaan iyo dhul iyo deegaan wax way maamula haddii la rabo in doorasho qof cod la qabto haddii la doonayo barnaamijka filla Soomaaliya ee doorasho qof cod doonayna waa in Soomaali laga talageliyo weey meel Soomaali ku kala maqan tahay annagu ka qayb gali mayno waliba dadka aan isku baadhiganahay ee Daaro Ismaaciil meel madaxdooda ka maqan yihiin madaxweyne fadhi ka qayb gali maayo warkaas waa confirm weey arinta labaad حقي يحقوقي أو دمايستن أساسي خاطر مدحوينه وينو سي أوفيشال أو دواقع بشتك أسيدايا مشاريع دي وحوي هدي لك وديجان كان وفصحه ولا أغلى إفتيش يكون أي نقول جوال وحوي أمس بلقوم هدية إيه سنقولها وينو بابليك دقة بابليك ده هاتان هاي أنا أحمد أولي جمهورية الفدرالية الصومالية وإحنا عالسوين مدحوينها الدولة جوالات كأساسي خاطمة عبد القادر أحمد أبو علي فريق حلال با افتين لقشله ما انت هو نفسه مدحوينه فرديه horta mid baa idin sheegay madaxweynuhu siyaasadda internalka gudaheena door dhiska ku guuleystay boqolka boqol halka dhaliisha uu leeyahay waa siyaasadda xamar muqdisho anigu waan ogaa dhaliishaas waan qabay laakiin siyaasadda maamulkeena ka hor imaado wax wanaag ku jira ma jirto dawladda wixii ka qodan tahay waa la saxaya midna waa rabaan madaxda ka cusub Khaatumo waa inay dadka u waramaan bal siyaasadda xamar iyo muqdisho iyo dawladda dhexe Soomaaliya iyo SC Khaatumo maxay ku saleysan tahay maxaa la isdhaafsaday maxay tahay maxaa qabsoomay sanadka muxuu yahay xiriirkan waxa weeye dalka ka dhaxeeyay madaxdana baan u baahanay arrintaas inaan ka hadasho oo madaxweynuhu ka hadlo oo golihiisa wasiiradu ka hadlo oo dadka loo waramo haddii dadka loo warami waayo Soomaa oo dadka mood laga galo dadka naga waramana anigu waliba xoogaal baana xagga federaalka xoogaal baan u ahay xagga Khaatumo xoogaal baan u dadka naga waramana waxaan idin ballan qaadaya wixii ka dambeeyay reer SC Khaatumo xog dambe oo aan idin qarin doono ma jiri doonto halkaas ay idin ka sheegaya soo madaxdiina dawladdiina ma inay idin waramaan ana daba idin waramaya insha Allah ta'ala intaasna waa intaas weey xasan sheekh maxamuud waxaan leeyahay dad doonayna Soomaali isu keenti Soomaali isu raadi afarta hareeraha ka xigay hawiye ilmaadeerada Soomaali ma matali karaan masiir Soomaaliyeedna ma go'aamin karaan xasan sheekh maxamuud waa ninka kaliya laba jeer madaxweyne Soomaaliya ka soo noqday waa 70 jir weey cudur daar daba ma laha haddii 5 sano hore wax ka khaldameen maanta la sugayay wixii ka khaldamay maanta da'yahay maanta odayahay waxa uu saxaya wala islaha dalka kama bixin dalku joogo jira macallin booha arrimaha bulshada aad ugu xildheer waxa la lahaa isbedel buu keenayaa baa Soomaaliya lahayd laakiin xasan wuxuu noqday xasankii buu noqday Soomaaliya waxa dhaga ma guuran dhaga liibaxna ma guuran dhaqankiisa haybtiisa kama tago حسن كانوا نقانوا حسن وحسن عذر دار دمان ما شفته الله نحر استعاره خليف قلاد بابا حلاقها يروح الحسن ديانا مدين وكي قانا ضلنا مدرود بكي قانا تيبا صباح تيبا حقيقة الله هدي وحكولو قول كيران كواس حقوق في اللعطو دربان كانت قراعي سيادة ورشاقو في عض ماشي اللي قلتم اللي هبا اللي بهاي انتاسنا وانتا سوي حكوسو قبقبينيا وسaaradda ciyaaraha SC Khaatumo tartanka ciyaaraha la qabanaya Khaatumo State of Soomaaliya degmooyinka dhan baa loo qabanaya waxaana lagu leeyahay degmadii Caynaba ee gobolka Sool iyo degmadii Afweyn ee gobolka Sanaag ee reer SC Khaatumo ay deganaayeen ayaa laga reebayaa waxa way tartanka ciyaaraha taasi haday rumowdo waa qaran dumisnimo waa khiyaamo qaran weyn wasiirka ciyaaraha la gaarsiyo واي سيل لو غير بكره عينبا يو عيله في مين SC Khaatumo ahay miyana ku noolay muwaadiniin SC Khaatumo tartanka ciyaaraha waa in lagu daraa alooyinka Caynaba iyo hadii la kuurayay Afweyn SC Khaatumo ay kamid yihiin Afweyn afartu kana mala ka xiga
afarta koonaba heesi khato muwaadiniin waxa weeye maamulkan istaba haddii la kor ka xiga bilaa matalaan ma noqonayaan ma noqon karaan haddaad idinku taa xaqooda xataa haddii la kurayo aad aastaan annaga sheegayna booda hadday degan yihiin oo bilcil bay degan yihiin oo higlo fuulaan bay degan yihiin oo kulaal bay degan yihiin oo darey horkac bay degan yihiin oo galbar waaqay degan yihiin oo ka tirsan waxa weeye haddii la kuro celaf weyn waa inay tartanka ka qayb galaan iyagoo degmada celaf weyn matalaya caynaba waxa ku xeeran oo dhan aniga degan magaaladuna waa inoo kala baran tahay yaama dadka magaalada gudaheeda joogin laakiin guryaheeda iyo xaafadayda waa gaar weli oo dhismihii weli ku yaala deegaankii muwaadiniinta is qaatimo afarta koonana anaa ka xiga waxa ay xukuntaa magaalooyinka Guumeys Yeyle Goljono Ceegaag Horiyaal Baleeciye Boqdarkeyn iyo Qaydar inta waxa xukunta dal ku reeya aynaba xukunta magaalada